xaasada dhadhanka dareemaha dhadhanka ayaa laga qaadaa cudur baa ku dhacay dadka qaarkii yani ma kala garan karaan kharaarka iyo macaanka sonkor haddaad afka ugu rido iyo haddaad dacar afka ugu rido kulligood isku dhadhan bay u noqonayaan macnaheedu ma waxa weeyaan sonkortaan macaanayn miya maya sonkorta weli macaankeedii waa leedahay isagaa laakiin waxaa ka maqan oo laga qaaday xaasadii dareenka uu ku dareemi lahaa macaanka iyo kharaarka u kala garan lahaa salaadu marka waa macaan tahay waana raaxo lagu raaxaysto siduu nabigu ugu raaxaysan jiray laakiin adiga ayaa waxaa kaa maqan xaasadii aad ku dareemi lahayd salaada macaankeeda iyo dhadhankeeda saas macnaha xaqiiqada taas marka nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leeyay wajucilat qurratu cayni fi salaa xadiis kale waxaa ku sugan kaana idaa xazabahu amrun baadara ila asalaa nabiga sal alay wasalam hadday shay murgiyo oo shay walbahaariyo salaadu u degdegi jiray nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh salaada loogu raaxay buu dhihi jiray bilaalow aadaanka loogu raaxee aadaanka loogu raaxay buu dhimi jiray nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh habeenkii saqda dhexe markuu intuu soo kaco rabbigii isu taago xataa isma garan jirin nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh lugihiisaa dildilaaci jiray suu taagan yahay suu cibaado ilaahay ugu taagan yahay lagu dildilaaci jiray ismana garanay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh limaada lianna macaanka uu ku dhex jiro iyo shayga uu yani dhex dabaalanayo ayaa halmaansiinaya jirkiisa dhibaatada soo gaadhay xadiidka saxiixa ee sunan abi daawuud ku soo arooray laba nin oo saxaabada nebiga ka mida sal alay wasalam ayaa socoto ah way socotaynayeen oo way socdeen labadii nin ee saxaabada ahaa ayaa meel degay waardigay iska qabteen cadow iyo waxbay ka cabsanayeen mid baa seexdo wuxuu yihi war anugu waan yaran masane bal waardiga inaga qabo bu kii waardiyaha ahaa baa salaad galay kii kalena waa hurdaa salaad buu ku jiraa waardigana wuu hayaa cadow baa ka daba yimid nin baa intuu usoo gabaday oo agtiisa soo fadhiistay waa habeennimo buu isagoo taagan oo salaadii ku jira buu leeb ku dhuftay leeb buu ka taagay ismaba dhibina leebkii intuu iska siiday iyo salaadiisi iska sii wata mid labaad buu ku celiyey leebkii ayar intuu iska siibay labaad buu salaadiisi iska watay mid saddexaad buu ku dhuftay kiina intuu iska siibay buu salaadiisi iska dhamaystay salaadii markuu dhamaystay isagii oo dhiiggii ka daadanaya iyo wuxuu toosiyey ninkii saaxiibkii ah kii baa wuxuu ku yii war intanoo nabar kugu dhacayeen maxaad ii toosin wey markaasuu wuxuu yidhi waxaan akrinayay aayado qur'aan ah oo aada iigu dhadhamahayo on macaansanahay waxaanan diiday bu ihi inay ga kala go-aan ya ilahay baan idinku dhaaraya bal u fiirso waxaan kuu toosin waayey ninkana aan ula dagaalami waayey leebka igu dhacaye jidhkayga duleelinayana aan ugu dulqaatay calashaani qur-aanka macaankiisa iyo salaada aan ku jiro ayay inay iga kala go-aan baan diidanaa bu leey soo bini aadan maaha xadiidku waa xadiis saxiixa sunan abu daawuudku ku yaalla muxuu dhadhaminayaa ninkani oo u muuqdo oo jidhkiisii nabarka gaadhaya halmaansiiyey waan idin weydiina ya waa waxaynaan inagu xataa inaynu hello iskaba dhaafa aynaan xataa sawiran karin xataa sawirkiisa xataa inaan hello xataa waa inagu adag iimaankiisaa kobcay oo koray markaasaa wuxuu noqday tii nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wajucilat quratu cayni fi salaa meeshaan ku xasileen ku raaxayso waa salaada dhexeeda buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh soo maarta marka camalkaa saalixeed ilaahay ugu dhowaanayso iyo cibaadadaa rabbi eed ku dhex jirta ayaa waxay tahay shayga lagu gaadho raaxada iyo xasiloonida iyo deganaanshaha nolosha lagu gaadho taa ruuxii ka qaday wax kaloo uu ku gaari karo ma jiro xadiidka saxiixa rasuulkeena sal alay waslam xadiid alqudsi ayaa rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala ya bna aadam tafaraq licibaadatii amla'a qalbaka ginan waasudda faqrak wailaa tafcal mala'tu sadraka shuglan walam asudda faqrak ibni aadamow xadiidulqudsi rabbi baa inala hadlaya subxana wa tacala ibna aadamow cibaadadayda u faaruq aniga caabuditaankaygiiyo cibaadadayda u go haddaad saa yeesho qalbigaaga waxaan ka buuxinayaa deeqtoonaan iyo deganaansho iyo raaxan qalbiga kaaga buuxinaysa baahidaadana anaa daboolaya haddaad yeeli weydo qalbigaaga waxaan ka buuxinayaa mashquulsanaan
iyo shuqul iyo walbahaar baan kaa buuxinaya baahidaadana dabooli maayo. maxaa lagu gaadhaa marka allah qalbigaaga inuu deganaansho iyo raaxo geliyo baahidaadana daboolo? waxaa lagu gaadhaa inaad ilaahay cibaadadiisa subxaanahu watacaala u tafaruqo oo inta aad adduunyada ku bixinayso markaad saa u fiiriso yani waxa weeye jadwalka ku yaal jadwalkaaga markaad timetable-kaaga markaad saa u fiiriso waa in inta ku xusan maalinta iyo habeenka daacada ilaahay intay qaadanayso waa inay ka badnaato adduunyada intay qaadanayso. saacadaha aad shaqada ku jirto ama xafiiska fadhido ama ilmahaagiiyo reerkaaga la joogto iyo saacadaha cibaadaadka markaad fiiriso waa inay badato saacadaha ilahay aad caabudayso subxana watacaala. halkaasaa waxaad gaadhaysaa rabbi subxaana watacaala inuu ku dhaxalsiiyo o ku siiyo oo abaalgud kuu siiyo in noloshu ku macaanaato oo qalbigaaga ilahay dejiyo subxana watacaala. asbaabtaa waxaa ka mid a walaalayaal ku gaadhsiin kara yani nolosha xaqiiqiga dhabtaa lagu gaadho ilahay dikrigiisa subxana watacaala, allah xuskiisa inaad carabka rabbigaa ku hayso subxana watacaala. yani waxa weye subxaana allah, laa ilaha ila allah, allahu akbar, yani laa xawla walaa quwata ila billah, alxamdu lilah. yani ilahay subxaana watacaala xuskiisa inuu carabkaaga ku bato, qalbigaaguna uu ku bato allah xusuustiisa subxaana watacaala oo cadamadiisa iyo weynankiisa xusato oo inuu ku daalacanayo mar walba ku arkayo qalbigaaga ay ku jirto oo aad yani rabbigaa subxaana watacaala xusuustiisa iyo xuskiisa inaad badiso. waxyaalaha keena bay ka mid tahay nolosha xaqiiqiga ah, noloshana macaaneeya. waxaa kutusaya aayadda qur-aanka rabbi uu yihi subxaana watacaala aladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illah alaa bidikri illahi tatma'inu lquluub. kuwa allah rumeeyey qalbigooduna uu ku xasilay dikrigiisa, war dikriga ilaahay bay quluubtu ku xasishaa. quluubta waxaa dejiya oy ku xasishaa oy ku raaxaysataa dikriga ilahay. horey baana usoo sheegnay qalbigu hadduu xasilo noloshu waa macaananaysa, qalbigu hadduusan xasilin oo degin noloshu waa khasaare iyo silic iyo rafaad. waxaa kaleeto rabbi subxaana watacaala qur-aanka inoogu sheegay dikrigiisa iyo xuskiisa oo laga jeedsadaayey inay tahay nolol cidhiidhi ah. waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yawma alqiyaamati acma. ruuxii dikrigayga iyo xuskayga ka jeedsada oo aan dan ka gelin, rabbi wuxuu leeyahay subxaana watacaala waxaanu noolaynaynaa nolol cidhiidhi ah. nolol cidhiidhi ah, dankiga waxaa la yidhahdaa shaygu markuu cidhiidhi yahay aada cidhiidhiyayo jiqya jiq markuu yahay yani waxa wey meel laga gala usan lahayn. marka nolol adag oo cidhiidhi ah oo silic ah oo rafaad ah baan noolaynaynaa ruuxii dikrigayga ka jeedsada bu rabbi subxana watacaala. waa noloshaa qalbiga, waa noloshaas macnaha waxa weeyaan qalbiga waa adigii oo yani waxa weye deganaanshaha iyo raaxada lagaa qaado, waa adigii oo silca, waa adigii oo kadeedma, waa adigii walbahaar iyo lagugu ibtileeya. marka dambena waa shaba, marka dambena stress intuu kugu dhaco yani waala shaba galaba. marka waxaa lagu gaadhaa allah dikrigiisa subxaana watacaala baa kamida waxyaalaha nolosha macaaneeya inuu addoonku ilahay dikrigiisa badiyo. ninkii saxaabiga nabiga u yihi sal lay slam nabiga ii dardaana yidhi wax jannada igeliya cadaabkana iga badbaadiya. nabigu wuxuu ku yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah. carabkaagu yuusan ka zuulin inuu ilahay dikrigiisa ka qoyan yahay subxana watacala, mar walba ku qoyan yahay, ku celcelinayso dikriga ilahi subxana watacala adag yuusan ka zuulin. waa fududahay, adoo shaqaynayaad ilahay xusi kartaa, adoo dukaan iibinayaad ilahay xusi kartaa, adoo shaarica socdoo iska socdaad ilahay xusi kartaa, adoo carruurtaada iyo reerkaaga dhex joogaad ilahay xusi kartaa, xafiiskii adoo ka shaqaynayo fadhiyaad ilahay xusi kartaa. allah xuskiisa subxana watacaala wax adag maaha, wax adag maaha. rabbi dikrigiisa waxaa la waafajiyaa yani ruuxii ilaahay subxaana watacaala u khayr la rabo. rasuulkeenana sal alay waslam sida xadiis saxiix ee muslim ku sugan kaana yadkuru allaha fi kulli axyaani. allah ayuu xusi jiray nabigu sal lay slam waktiyadiis oo dhan. xuska ilahay buu hayn jiray rasuulku salawatu rabbi wasalaamu caleyh. yani asbaabta keentay kamid tahay nolosha inay macaanaato. waxaa kamid ah asbaabtaas aliimaanu biqada'i illahi wa qadarihi, in aad rumayso wax kasta oo kugu dhachaya inuu ilaahay qorshihiisa yahay, wax ilaahay qorsheeyey inuu yahay. haddaad si kasta u dadaashana uusan ku seegeen. taasi waxay wax kaaga taraysaa markii ay waxaad qaadi weydo culaysa kugu dhaco. daawada aad isku daaweyni waxa way inaad rumaysan tahay waxaani inuu horay u qorshaysnaa. ila nolosha waxyaalaha khadhaadheeya waxaa ka mid ah ruuxu ama in faqri lagu ibtileeyo, ama ma ahe lagu ibtileeyo cudur lagu ibtileeyo,
ama nabadgelyo darro lagu ibtileeyo ama reerkii carruurtii laga galo yacni waxa weeyaan shay uun ruuxa intuu culaysiiyo markaa kadibna ruuxu isla hadlo taas waxaa daawo u ah oo aad kaga nasaniyo dhibkeedaba haba yaraatee aadan isuguba dhibayninba markaad rumaysan tahay waxani inuu qorshaysnaa qadaa'u llahi wa qadaruh allaha subxaana wa tacaala intuusan kownkan abuurin oo dhulka iyo samaawaadka uusan dhisin oo bini aadam uusan abuurin ayuu wax walba kala qorsheeyey wax walbana kala qoray sidii uu wax u qorsheeyey unbay wax u dhacayaan kamana fakan kartid qorshihii ilahay subxana wa tacala maa asaabaka lam yakun liyukhti'aka wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak wixii kugu dhacay marna kuma gafeen saas daraaddeed haddaan sidan yeeli lahaa haddaan sidan u taxadari lahaa haddaan halkan mari lahaa lowdaa ka bax low meel ku geyn mayso waana yani waxa way camal shaydaan bay furtaa waswaas unbay qalbiga kaa gelin mooye iyo walbahaare waxba ma soo kordhis laakiin waxaa lagu leeyahay waxaad ogaataa wixii kugu dhacay marna kuma seegeen wixii ku gafayna marna kuguma dhecen caqiidadaa haddaad rumaysan tahay oo ilmihii lagaa qaado carruurtaadii haddii lagaa qaado ilaahay ma dhehe ma qadare ay kugu dhacdaba masalan soo isin sabirsiin mayso war waxaan horu uqorshaysaa baad dhihi intaasaaba kaga bixi xoolihii baa lagaa qaado xalay baa lagu soo dhacay oo intaad haysataba lala tegay waxaad leedahay war horu uqorshaysnaa waxan marna kuma seegen yacni waxa weeyaan jirkaagiibaa caafimaadkaagiibaa dhib gaadhay waxaad leedahay waa qorshaysnaa wax horay uqorshaysan bu ahaa marna waxbaad ka bedeli kartaa maya hadda waad iska sabri yacni waxa weeye waa daawo waa daawo waa midda keenaysa gaaladu iyo dadka aan mabda'a rumaysnayn markii ay wax culusi ku yimaadaan ama inay isdilaan xal kale ma hayaan ama inay waashaan ama inay khatar kale galaan noloshoodii oo dhan inay fasaado waxaa keenaya mabda'aas ayna rumaysnayn mabda'aasi marka waa daawo rabbi subxaana wa tacaala qur-aanku ku tilmaamay arrintaa iyada ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir likay laa ta'tuu cala ma faatakum walaa tafraxuu bima aataakum wax kastoo dhulka ka dhacaya ama samada ka dhacaya horu u qornaa intaan la abuurin buu qornaa maxaa saa loolayo laydinku sheegayaa likay laa ta'saw calaa maa faatakum wixii idinka tagoo idin dhaafay inaydaan u murgin walaa tafraxuu bimaa aataakum wuxuu idin siiyeyna inaydaan ku kibrin kibirka waxaa keena inaad istiraado wallahi waxaan adaa shaqaysa xoog iyo xeelad iyo cilmi aad leedaad ku keena kibir bay kugu kalifaysa laakiin haddaad og tahay ilaahay baa ku siiyey oo horay u qorshaysnayd oo lagugu talagalay kibir ma jiro maxaa yeelay awooddaadi iyo cilmigaaga iyo garashadaadi iyo garaadkaaga kuma imaan tabartaa kuma imaan waa la iska gaadsiiyey saa haddaad rumaysan tahay kibri maysa musiiba markay kugu dhacdana haddii aad qabto ood isleedahay wallahi jidad kale haddaad maraysa siyaalo kale leeleed malaha waad ka baaqsan lahayd oo si unbaad kaga fakan lahayd haddaad isleedahay walbahaar baad u dhiman oo talo sidan haddaad yeeli lahayd sidan haddaad mari lahayd jidkan haddaad mari sidan haddaad taxadari lahayd adeegiiba siduu kuusii wada kuusii khalas laakiin haddaad iridda dhanba ku xidhaba allah qorsheeyey horayna u qornayd kumana seegteen ma haddaan sidan yeeli lahaa baad dhihi maya albaabku waa kaa xidhmaya bas qalbigaaga waxaa gelaya deganaansho raaxo xasilooni sabir buu ilahay ku siinaya subxana wa tacala soo marta yani waa mabda aada u qiimo badan waana mabda'a keenaya ruuxa muslimka isagoo gaajaysan oo rafaadsan oo silicsan oo cudur uu daashaday haddana maca dalika inuu faraxsan keenaya gaalka isagoo xoola haysta oo dheregsan haddana inuu isdilo isceeji inuu laba yaaban yahayba muslimkan gaajaysan adoo rafaadsan buu kuleeyay adoo rafaadsan oo silican ku hay seed u qoslaysaa ma qosol baa ku yaala ha waxaa qosol baa ii yaalla lianna waxa weeyaan meesha isagu wax ku qiimeynayo kuma qiimaysna ruuxa muslimka haba dhibaataysnaado laakin qalbigiisaa dheregsan ha gaajaysnaado laakin qalbigiisaa dheregsan allah buu ku xidhan yahay subxana watacala mabda'aasuu rumaysan yahay hadduu mabda'a rumaysan yahayna wax ka maqani ma uu jiro waa ka nabigeena odhanaya salawatu rabbi wasalaamu aleyh cajaban liamri lmu'min cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr waxaa la yaab le ruuxa mu'minka arrinkiisoo dhan waa khayr buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu aleyh in asaabathu saraa shakara fakana khayran lah wain asaabathu daraa sabra fakana khayran lahu bu nabi uri sal alay wasalam yani hadday dhibaata ku dhacdo wuu sabrayaa markaasay khayr u noqonaysa haddii uu wanaag helo wuu shukrinayaa markaasay khayr u noqonaysaa ilaan dadku waa un labada inaad dhibaato ku jirto waa sabir inaad barwaaqo ku jirto waa shukri labadaa xaalo weeyaan buu nabigu sal lay slam ruuxa mu'minka xalkiisa
mu'minun baana taa heli kara buu nabi sallallahu alayhi wasallam arrintaa mu'min keliya iskale ama gaalka iyo ruuxan iimaanka rumaysnayn oo iimaanka lahayn asagu markay dhibaato ku dhacdana isma kala reebe ee wuxuu gaadha heer ama u waasho ama isdilo markii uu barwaaqo helana caafimaad iyo xoolo iyo wuxuu rabay markuu helana kibir iyo isla weynan bay ku kaliftaa iyo xuduudii iyo sohdintii inuu tilaabo mu'minku laakiin mar walba waa dhexdhexaad saasuu nabigeena tilmaamaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh walaalayaal yani runtii waxyaalaha ugu badan ee maanta keenaya masalan dadku inay noloshii ka qasanto oy kharimaan oo waashaan oo rafaadaan oo walbahaaraan oo walwalaan waxa keenaya u badan waxaa kamid a masaa'ibtaa ku dhacaysa loo dulqaadan lahay masaa'ibtaa ku dhacaysa loo dulqaadan lahay masaa'ibtu markay kugu dhacdo sabir marxalada ugu horraysa sabir adkayso ayib in ilaahay kugu keeno sidana kaga fakatayna rumee waxaa kasii fiican marxalada iyada marxalo kasii fiican baa jirto inaad raalliba ku noqotoba in ilaahay subxaana watacaala caafimaad darro kugu rido raalli ku noqoto waad ku qanacdo in ilaahay subxaana watacaala xoolaha kaa qaado inaad raalli ku noqoto sabirkii way kasii jirta leanna sabirka qalbigaagii waxbuu dareemaya culays buu dareemaya laakin waad iscelinaysaa sabir baa la dhaha ridaha laakin waxaa la yidhahdaa qalbigaagii baaba qanacsanba waaba iska qancdayba qalbigaagii baaba raalli oo kuba qancayba cudur baa lagugu riday ilahu raalli baan ku ah yani carruurtii baa laiga qaaday ilahu raalli baan ku ah faqri iyo musiiba kugu dhacday raalli baan ku ah amaan daraa dhacday ilahu raalli baan ku ah ilahu waxaad qadartay raalli baan ku ah waa marxalada xigta wey martabada rida baa la yidhahdaa martaba kasii fiican baa jirto martabatu shukri ah martabatu shukri maxay tahay martabatu shukri waxa weeye musiibadu markay kugu dhacdo in aad ayada lafteediiba ka shukrido oo tidhahdo alxamdu lilah nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu aleyh wuxuu dhihi jiray wuxuu ku farxa markuu arko alxamdu lilahi aladi binicmati tatimu saalixaat wuxuu dhibsado markuu arkana wuxuu dhihi jiray alxamdu lilahi cala kulli xaal xaalad walba ilahay baa mahadlay oo seebay shukri u noqon kartaa shukri uga dhalan karaa musiibadii kugu dhacday haddaad dhowr dhinac fiirisaan musiibada kugu dhacday shukri bay noqon kartaa inaad ka shukrido nicmaabaad u arkiba oo seebay u noqon kartaa waxay u noqon kartaa masalan musiibada kugu dhacday dadka kale ee musiibada noocaas oo kale ay haysato haddaad isgarab dhigto waxaad u arkaysaa dad badan oo kaa liita inay jiraan soo ma cudur baa ku haya kuwo kale haddaad fiiriso khalqigaa fiiriso 100 kaa daran baad arkay soo ma soo dhihi maysi marka ilaahu kuwaas midka aad ku riday allihii aan igu ridin oo alxamdulilah ya haddii cudurku hayo mid baa cudur hayaa faqrina hayaa nabadgelyo darana haysaa curyaanna ah mashaakil oo dhan isku darsaday adiga laakiin waxoogaa cuduraad ka sheeganaysa kaasoo kale inaan lagaa dhigin soo alxamdulilahi ma musiibadaada markaad fiirisood kuwo kale u fiiriso mid yar bay noqoni alxamdulilah baa dhig intanaaba farda kula carra intanaaba farda kula carra xaggaa markaad ka fiiriso waad shukrin marka labaad dhinac kale markaad ka fiirisana shukri bay noqono waxa weeyaan musiibo kasta oo idinku dhacaysa ajirna waa laydinka qorayaa dembina waa laydinku dhaafayaa darajona waa laydinku koryeelaya ya waxaadan shaqaysaninba musiibo kugu dhacday haddaad ku hesho soo wax weyn ma alxamdulilah maxaa yeelay ruux haddaad aragto sidiisaba ayna musiiba ku dhacaynin waa ahlu naar ruux haddaad aragta layska daynayo oo la bulaalinayo oo haba yaraatee caafimaad iyo wuxuu rabay inta laysugu daray faraha laga qaadayo markhaati waxay u tahay addoonkaasi inuu ahlu naar yahay xadiis saxiixa oo uu soo saaray ibn xibbaan صحيح موارد الظمآن كان الشيخ الألباني عليه رحمة الله يكون صحيحي أيها وحو ليه نين أعرابي النبي قوية صلى الله عليه وسلم نين أعرابي النبي ربادية نينكي ربادية أبو النبي صلى الله عليه وسلم ما اتقانا أبو كوير أم ملدم وحدة هذا ما اتقانا مركاسوير ما أقان أم ملدم وقان ضبا وليقا ما قان ضطيب كوير وليقا ما قان ضنب weligaa madaxu ma ku xanuunay weligay madaxu ma xanuunin markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ninkii doonaya nin ahlu naar inuu arko ninka fiiribu ahlu naar ninkii doonaya inuu arko ninka fiiribu nabigu sallallahu alayhi wasallam